Shanta meelood oo gabdhaha aad ugu kacsadaan. Shantaas meelood aan qishkeeda idiin siin doono, maanta ha laga faa'iidaysto. Waa hubaal inay xaaskaaga ama saaxiibtaada dhowr mar biya bixi doonto, kuna sii jeclaan doonto haddaad meelahan ka jilciso. Waxaan ugu muhiimsan ee lagu gartay in gabadha qooqahayo in ay indho kacsi kugu fiirinayso. Meelaha ay ka kacsadaan waxaan ka mid ah: 1. Bishimaha. Bishamaha gabdhaha aad ayay ugu kacsadaan siiba marka laga shumiyo, laga baashiyeeyo si xanata xata ku jirto, gabadha waa hubaal kacsi dartiis ayay hawada galaysaa. 2. Dabada. Ma ogtahay gabdhaha inay aad ugu kacsadaan dabada in laga tuutuujiyo ama laga salaaxo dabada iyo labada bari dhexdooda, kacsi daran ayay ka qaadaan ayagana. 3. Naasaha. Waxaa kaloo ka mid ah meelaha ugu daran ay gabdhaha kacsi dartiis faruuryaha la qaniinaan, marka naasaha laga qabto si tartiib ah, faraha foodooda siiba ibta naaska marka laga dhuuqo xaaskaaga kacsi dartiis ayay dhalaalaysaa. 4. Kintirka. Meeshaan waa meesha ugu daran ay dumarka kacsi la qayliyaan, ragga haddii meeshaan farta foodeeda ku salaaxdid waxaa durbaba soo boodayo biyo cad, waa biyo baxaysaa. Marka biyaha cad soo baxaan ha ku degdegin inaad gus kala aado. Wixii aad samayn lahayd wakhtigan cashir kale ayaan kaga soo hadli doonaa. 5. Siilka. Siilka waxaan ula jeednaa godka siilka, meeshaana dareen xooggan ayaa ku jira gabadha haddii far xitaa laga geliyo hori ayay ka dhacaysaa oo dheecaan xoog ayaa ka imaanayo, waxaa ka sii daran haddaad guskaaga oo taagan adag dhex geliso. Maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa, la soco qeybaha dambe ee aan ugu faa'iideynayno lamaanaha isqaba iyo kuwa isku diyaarunayo inay galmada ku wada raaxaystaan. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe soo saar.